الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سأل الله كل ما عصر بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. waxaan kusoo jirnay qasiidadii sheekh cabdiraxmaan zaylaci oo ku ammaanay sheekhana sheekh cabdulqaadir aljilaani radia allahu tacaala canhu wa ardaah oo baxrulkaamilka aheyd taasaan kusoo jirnay. waxaan maraynaa karaamaadku waa amrun khaariqun karaamadu amrun khaariqun lilcaadati habatat min yadi saalixin. waa shay wixii la yaqiinay ka duwan oo qof saalixa oo ahlu khayra ka sugnaatay. waxay marka astaan u tahay qofkaani waddada uu ku joogaa waddo saxa inay tahay. waxay kaloo astaan u tahay rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam inuu runloobahayo oo wax saxa oo ummadda u keenay. marka dhinacna mucjizay ka tahay, dhinacna karaamay ka tahay. maxaa yeelay weligaan karaamadan wuxuu ku helay biitibaaci nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nabiga raacidiisa. marka mutaabacadaas iyo arrintu ka imaanaysaa dhinacaasi mucjiso karaamadu ka tahay. marna waa la kala duwaa, waxaa la yidhahdaa wixii nabi ka sugnaadaana bacda nubuwa waa karaamo, wixii rajul saalixa ama imraa saalixa qof saalixa ka sugnaadaana wax leeyahay tii hore waa mucjizo nabi ka sugnaatay, midda saalixiinta kale ka sugnaatayna waa karaamo. kam anfusin in misanaf yaa xayiyad noolaatay buu yidhi bihi bibarakatihi, sheekha barakadiisa ku noolaatay oo sabab ugu noqday inay soo noolaato naf dhimatay. watakararat way soo laalaabatay ummun hooyo calabnatihaa gabadheedii calaa mawti bnatihaa gabadheedii dhimashadeeda, waa karaamo kale. fanaalad markaasay waxay gaartay hooyadii maladii kii jarad ay hooyadu dureersatay oo ay u socotay lahu isaga dartiis. gabadheedii aa ilaahay usoo nooleeyey bikaraamati sheekh cabdulqaadir jilaani. kamsi waahaa in mise karaamoo kasoo hartay midaas yaa daharad ka daahirtay sheekha. wadaalika karaamadaas kasoo hartay kuwaas horoo lasoo sheegay ka dajaajati digaaggii oo kale weeye. anagii ka sheekeynaynay riwaayadeeda weliba sanad saxiix ay ku sugnaato xufada waaweynaa soo guurinaysa oo xaafid subki uu ka mid yahay oo xaafid ibnu najaar uu ka mid yahay. xufada waaweyn waxay soo guurinayaan karaamadaas sheekh cabdulqaadir jilaani ka sugnaatay. kam in mise karaamo yaa sarad socotay buu yiri, sarad guuraysay, saraa uu ka yimid, sarad guuraysay. in mise karaamo oo kale ayaa socotay buu leeyahay oo aan digaagaas ahayn. kam in mise min karaamaatin oo karaamooyina yaa qad daharad daahirtay lahu xaal ay u sugnaatay sheekha, ama karaamaadkaas oo lahu sheekha u sugnaaday. karaamaatinta haddii laga sifeeyo lahudana jaariya majruurku xukmu ljumla u qabaa. aljumalu bacda nakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalun, waa laga sifaynayaa. haddii qad daharad faacilkeeda dambe laga xaaleeyana waxay noqonaysaa jumlada shibhuljumlada jaariya majruurka xaalo. kam min karaamaatin in mise karaamo karaamaadkaasoo lahu sheekha u sugnaaday yaa qad daharad muuqatay. wa khawaariqi lcaadaati kam khawaariqi lcaadaati kam min khawaariqi lcaadaati caadooyinka kuwa qarariyey oo ka duwan in misey daahirtay cinda naadiri qofka eegaya agtiisana ay ka daahirtay buu yiri. idaa nadarta manaaqiba sheekh cabdulqaadir aljilaani fasataraa khawaariqa alcaadaat wa karaamaatin qad daharad minhu. macnuu saas weeye. karaamaadkii marka qeyb kamid u sheegayahay. sallaa sheikhu wuxuu ku tukaday uu yihi cala albaxri, badii korkeedu uu ku tukaday. baxarkii alkhidami ee waasic ahaa, baxarkii alqulzumi ee guduudnaa. baxrul axmarka qulzumi la yidhaahdaa. waa karaamo kale iyaduna. mid kale karaamo kale jaa-athu sheikha waxaa u timid asmaaku samakyaalo kalluun bisilmi tafahumin isfahmid nabadgelyadeedayna ugu timid buu yiri. tafaahum iyaga iyo sheikha ka dhexeeya ay ugu yimaadeen asmaagtaanu. badda korkeeda saas hadduu sheikhu usoo istaago isagoo aan u ridanin bahashii shabaqa aheed iyo waa kusoo yaacayaan. karaamaadkiisay ka mid tahay. waa silmu tafahum. kam haabahu in misaa ka hibaysatay oo min kaafirin midaan diinba lahayn oo kaafira ah, bal muslimin ama muslima.
muslin iyo kaafirba sheekha waa ka hibaysteen. kam zaa'irin in mise qofaa ziyaaratay lidariixihi sheekha dariixiisa, dariixi almukarami la karaameeyey ilaa axad barakaysanaa ku jireen. zaa'irkaasoo min caalimin ahlu cilmi qof ah wa min shariifin mid sharaf le ah, shariif kaasoo faakhirin wuxuu ku faano haysta, duu fakrin. ninkii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay duriyadiisa ka dhigay oo haddana waddadii nabi maxamed ku jooga, soo shariif faakhira maahan, wuxuu ku faano haystaa. sunnadii nabigu nooleeyey sala allahu aleyh wasalam, jasadkii nabi maxamedna ilaaha ka abuuray, waa laba derajoo sarraysa. wa atad ilayhi, marka karaamaadka sheekha waxaa ka mid ah gaal iyo muslimba inay ka hibaysteen. muslimiintu waxay ku ciseynayaan qiimaha iyo sharafta ilaahay siiyey, gaaladuna karaamaadkiisa khayrkiisa ka baqayaan, kaasay ka hibaysanayaan, waa karaamo. zaa'iriinta sheekha dariixiisa soo ziyaaranaysa oo dadkii islaamka ugu qiimaha badnaay ah oo caalimiin iyo ashraafba lehna, waxay tusinaysaa sheekha masiyadiisa ee masiya sara tahay. wa atad waxaa u timid buu yidhi ilayhi sheekha intii ka al-usdu libaaxyada, walxaal hiya iyaduna mudallalatun mid la jecliciyaa ay tahay. libaaxii aarka ahaa iyo wax alla wuxuu arko halaagi jiray ayaa sheekha u imaanayay isagoo weliba jilicsan. walwuxuushu, wuxuushta waxshiyaasha xayawaanaadka wuxuushta la yihaaho banjoogooyinkaahina kadaa lamid ay ahaayeen. waa kow bixawlihi xaal ay ahaadeen sheekha gaararkiisa, mutabajilatan xaal ay tahay wuxuushtu mid weyneynaysa sheekha laftiisa, mubajilatan ay u dhigantaha. laa tacjaban hala yaab inuu yihi yaadaa midkaanow, yaa haada hala yaab inuu yihi karaamaadkaas. haddaad la yaabtid takun waxaad ahaanaysaa mutacadila, mid camal la aada noqonaysaa buu yidhi, camalkii wanaagsanaay ka qaawan haddaad karaamaadka inkirti. hala yaabin, la yaabku inaad inkirto kuu geynahay, karaamo caqli laguma qiyaasee. mutacadilka waxaa la yidhahda alladii yakuunu bilaa camal, yabqa bilaa camalin, camal la-aanaad noqonaysaa qof ah haddii aada inkirtid karaamaadke. wixii inkiridaas kuu geynaa iska ilaali oo cajabkaahu yidhi, la yaabka. saarat waxaa socotay buu yidhi lahu ilayhi sheekha intii kaa xaggiisa u socotay, ama lahu liajlihi dartiisa u socotay, arrukbaanu kuwii gaadiidka fuushanaa, jamcu raakibin. walxaal hiya rukbaantuna muharwilatun mid degdegaysa ay tahay lidikrihi sheekha dikrigiisay u degdegaysaa. kam waaridi in mise qofaa kusii arooreysta sheekha, wa kam saadirin in mise qofaa kasoo fulaysa. kii baahanina waa aadaya, kii soo xambaarsadana waa kasoo laabanaya. waarid iyo saadir. fuqta waxaad ka sara martay buu yihi sheekh cabdiqaadir jilaani adtuqaata kuwii ahlu taqwada ahaa. maxaad uga sara martay bificli kulli awaamira, wixii la isfaray dhammaantood sameyntooda aada samaysay, amar kastood fulisay. waijtinaabuka adiga ka fogaanshahaaga kulla nahyin nahyi kasta aad ka fogaatay, nahyigaasoo zaajirin wax reebayana kadaa iyaduna waa la mido waad ku kor noqotay buu yidhi. waa kanaa darajada sheekhu wuxuu ku gaaray oo halkan ku tilmaamayaa, waa taqwada ilaahay, awaamirtii ilaahay faray oo dhan uu sameeyey, wixii ilaahay ka reeb oo dhanna waa ka fogaaday. darajada midda ugu sarraysa oo la gaaraana taas wey. anta adugu almuqadamu kan la hormariyaa tahay buu yidhi, ladaa kulli xadaa'ira jamaaco kasta agtooda. jamaaco kasta oo laysu keeno, jamaacatu suufiya haddii laysu keeno sheekhu muqadam oo u yahay, jamaacatu lfuqahaa haddii laysu keeno muqadam oo u yahay, jamaacatu lmufasiriin haddii laysu keeno muqadam oo u yahay. noocaasoo ahay kaana jaamican lijamiici anwaaci alculuum, hadday luqa carabiya tahay, hadday funuunta kala tahay, sheekhu baaricow ku ahaa. darajadan ilaahay wuxuu ku gaarsiiyey subxaana wa tacaala aqoonta iyo camalfalka. camalfalkana waxaa ka mid a tadriiska, darastu lcilma xataa sirtu qudban. hadihi maqaalatu shaykhina sheekh cabdiqaadir aljilaani radia allahu canhu. kulli xadaa'ira jamcu xadiiratin wey. alxadiiratu hiya aljamaaca. waxaa kaloo xadiirada la yidhaahdaa man yucaddu lilqitaal, dadka si gaara loogu tababaro inay dagaal galaan oo tababarka goonigaa la siiyana waa la yidhahdaa xadiirada. laakiin tan hadda jamaacada loola jeedaaho jamaaco kasta, ama ha noqdeen kuwii la tababaray ama ha noqdeen kuwa ahlu cilmiyah, markii aada u timaadid adaa muqadam u ah oo lagu soo hormarinayo. jaahadta waxaad ku jihaaday yuu yihi fillaahi
fii diin illaahi ilaahay diinkiisa dhexdiisa. allihii alxaliimi dulqaadka badnaa, allihii alkaafiri dembiga dhaafayay. yaa sayida saadaati boqorada boqorkoodow, sayidyaasha sayidkoodow. cabdalqaadiri ya cabdalqaadiri xudifa minhu xarfu nidaa. cabdalqaadiri ya cabdalqaadiri sheekh cabdulqaadir jilaani. bicinaayatin bisababi cinaayatin waxaad ku saro noqotay oo aada khayrkaas ku gaartay. bicinaayatin dhowris, cinaayadaasoo min cindi rabbin rabbi agtiisa xaggiisa ka ahaatay. rabbigaasoo qadirin awood u leh wax la wuxuu rabo. in allaha calaa kulli shayin qadiir. rabbigaasoo mutafaridin la kali noqday bilcizi sharaf. rabbigaasoo barin muxsina oo khalqiga ixsaan u sameeya. rabbigaasoo naasirin haddana u gargaara awliyadiisa iyo dadka xisbigiisa ah. alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun. kataba allahu la aqnimanna ana wa rusulii. mawlalmawaalii huwa rabbiga aan sheegayahay mawlalmawaalii kuwa gargaara gargaarahooda wey. naasir kasta kan usii gargaara wey. shaakirin rabbigaasoo shaakirin haddana ku shukriya. lishaakiri kan asaga ku shukriya. ilaahay haddaad ku shukrisid ilaahay waa kugu abaal marinayaa. waxaa la yidhaahdaa mushaakalatul alfaadaa la yidhaahdaa. shaakirku kan dambe waa shukrigii xaqiiqada ahaa oo addoonka ilaahay toosiyahay oo ilaahay uga shukrinayay. kan horena lafdiguu shukri ka ya maahane mujaazin abaal marinaya wey. rabbigaasoo marka waxaad tidhaahdaa shaakirin abaal mariya lishaakiri kan ku shukriya. faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimithli ma ictadaa calaykum. faman ictadaa calaykum qofka idinku soo xadgudba, qofkaas waa daalim soo maha, waa dembiile. factaduu calayhi ka aarguta weeye ee adinkuna xadgudba maaha. tan dambe xadgudub lama yara, aargudashaa la yidhaahdaa. intii uu ku geystay keliya markaad u geysid wajazaau sayi'atin sayi'atun miluhaa ay noqonaysaa. tan dambe marka ictida maaha, ictiduhu waa dulmiga xadgudubka wey. tan horaa dulmi ah, tan dambe sababta looga cabira lilmushaakala, balaaqada xaggeeda mushaakala la yidhahda. labada shaakirna saas oo kale wey. waa kow. biqalbika bisababi qalbika qalbigaaga sababkiisa ayaad muqadam ku noqoto. muqadamun cinda kulli xadaa'ir sooma dhihin. bisababi cinaayatin min rabbin qaadirin. bisababi qalbika qalbigaaga sababkiisa. qalbigii asaafi ee saafiga ahaa. waa kow. bixubbin bisababi xubbin jacayl sababkiisaad haddana aada ku noqoto. jacaylkaasoo waafirin haddana weyn oo waasica. jacayl waasico ilaahay xabadkaaga geliyay oo nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkeeda aada jeceshahay ayaad ku gaartay buu yidhi. qalbigaaga saafigaahaad ku gaartay. cinaayo rabbaaniyahaad ku gaartay. dhammaantood wax ilaahay baxsho way subxaana wa tacaala. waa kow. muxuu jecel yahay sheekhu bixubbin bisababi xubbigaasoo waafirin weyn oo waasica. lixadrati lmawlaa naasirka ilaaha ah xadradiisa aada jeceshahay. allihii alcaliimi cilmiga badnaa, allihii alkaafiri ee dembiga dhaafayay. shahidat birutbatika alafaadilu muscidii wa aqarat ilkubaraa biha yaa munjidii wa biha tawaasow murshidan can murshidii khadacat riqaabu lwliyaa laka sayidii yaa caliya almiqdaari kanza saraa'ir. wuxuu yidhi shahidad waxay ka marqaati kacdayuu yidhi al afaadilu kuwii fadliga badnaay birutbatika darajadaada. muscidii yaa muscidii kan i liibaaninayow oo sabab igu noqonaya liibaanta. waa munaadi xarfu nidihi ka go-an yahay. wa aqarat waxay qireen uu yidhi alkubaraau kuwii waaweynaa bihaa rutbadaada martabadaadii. yaa munjidii kan i kaalmaynayow, yaa munjidii kan i korinayow. labada macnaba waa leeyahay. watawaasow waana isu dardaarmeen kubaradii dadkii waaweynaayay bihaa martabadaadaasay isu dardaarmeen. murshidan xaal uu yahay midka dardaarmaya mid wax xanuuninaya, kaasoo aakhidan ka qaatay can murshidin mid kale wax xanuuninaya. sheekh walba sheekhiisa wuxuu kala talaqiyey sheekh cabdulqaadir jiilaani martabadiisu inay tahay mid dadka kubaradaahi ay qireen qof walbaaba inuu qiro laga rabo. khadacad waxaa khuduucday buu yidhi riqaabul awliyaa awliyada qoortooda laka adigay kuu khuduucday. sayidii yaa sayidii sayidkaygow. yaa caaliya almiqdaari qadarkiisu midkuu sarreeyow.
kanza saraa'ir yaa kanza saraa'ira sheerka dartiisa loo hoos dhiga maalanya sarf yaa kanza saraa'ira siriyaalo kaydkooda kan ahow sheekhii laftiisii wey wuxuu ka jees iltifaadaa la yidhaahdaa waa tafanun cibaaro cusubsi dadka ku xeel dheer tacbiirka luqadda carabiga lagu yaqaanaa marna qof hor joogow la hadlayaa marna qof maqanow la hadlayaa waana isku hal qof tajriidaa la yidhaha iltifaadna waa la yidhaahdaa balaaqada waxay ka mid tahay mustaxsanaadkeeda wuxuu yidhi huwa sheekhu hadda waa kii lahay sayidii iyo laka iyo yaa caaliyalmiqdaari iyo isagoo hortaagan siisu kale ula hadlaya haddana isagoo maqan oo ka sheekeynayo siisu kale u hadlaya markaasu wuxuu yidhi huwa sheekhu nicmatun waa nicmo nicmadaasoo lilkhalqi khalqiga u sugnaatay diinta islaamka u bareeyey suluugii adabta u bareeyey uu anfacay nicmadaasoo ayu nicmatin kaamilu nicmatin nicmo midda ugu kaamilsana ayu taas bimacnaa kaamil wa safaau cayshin nolol saafi ah weeyuu yidhi bal wa raaficu niqmatin cuquubo mid kor yeelay weeyuu yidhi wa baliyatin wa raaficu baliyatin balaayo mid kor yeelay wa adiyatin raaficu adiyatin dhib mid kor yeelay wa mulimatin musiibo soo degtay mid kor yeelay weey huwa sheekhu raxmatun waa naxariis raxmadaasoo linnaasi dadka u sugnaatay raxmadaasoo ayu raxmatin kaamilu raxma raxma midda ugu kaamilsana yadcuu sheekhu wuxuu ugu yeerayaa kulla xaa'irin mid kastoo wareersan oo meeluu raacola lixubillaahi ilaahay jacaylkiisa kulla way meesha kor dhigan tahay waa mafcuulka yadcuuda yadcuu sheekhu wuxuu ugu yeerayaa kulla xaa'irin mid wareersan dhammaansa lixubillaahi qif baabahu mutashafican bihi huma dum mutawaajidan mutanaawilan minhu litumxa sayi'aatuka wuxuu yidhi qif markaana sheekhu wuu kula dardaarmayaa sheekh qaasim albaraawi sheekh cabdiraxmaan zaylacina dardaarankiisa waa beydka meesha ugu dambaysa abyada wuxuu yidhi qif istaag baabahu sheekha albaabkiisa soo istaag mutashafican xaalaa tahay midku shafeeca dalbaya bihi sheekha oo ilaahay ugu dhawaanaya uma markaas ka gadaalna dum daa'im uu yidhi albaabkaada soo istaagtay ha ka tegin oo hal mara keliya nin garaacay ha noqon mutawaajidan xaalaa tahay mid jadbaysan oo jacayl hayo kaasoo mutanaawilan haddana qaadanaya minhu sheikha xaggiisa ka qaadanaya maa yucdi waxa uu bixinayo sababtuna waxa weeye litumxa si loo tiro sayi-aatuka xumaanyaashaada oo ilaahay u tiro subxaanahu wa tacaala sheekha barakadiisa uslug qaad silkahu sheekha silkigiisa qaad muxuu ahaa wadadiisa iyo taxiisa iyo dariiqadiisa qaad buu yidhi laa tanam ha seexan uu yidhi wadadaasaad u qaadi lahayd ka fakar habeenka dhan kusoo jeed intaas waa sheekh qaasim albaraawi dardaarankiisii raximahu llahu tacaala sheekh abdiraxmaan zayreci wuxuu yidhi yaa man qofkaasoo yaruumu dalbayow alqurba dhowaansho min mawlaahu naasirkiisii rabbi ahay oo u dhowaado kan dalbayow qum istaag faqum istaag mutawasilan xaalaataa mid ku tawasulaya bishaykhi sheekhi cabdilqaadiri ahaa labadii sheekhba marka waa isku dardaaran wa musaa'ilan xaalaataa mid weydiisanaya rabbi nayla alcadaa deeqda gaaritaankeeda walmakhraji wa nayla almakhraji bixitaan ama makaano bixid gaaristiisa min kulli suu-in xumaanta kasta aad ka baxdid walhudaa wa nayla alhudaa hanuun gaaristiisa walmafraji wa nayla almafraji faydid gaaristeeda min kulli karbin kurbo kastana lagaa faydo xaggeeda khayrun khayr baa yeji-u ku yimaada buu yidhi oo ku imaanaya bismihi sheekha magaciisa haddaad sheekha ku tawasushid khayr baad helaysaaba wa mulaaziman xaalaa tahay mid laazimaya muxuu ahaa sheekha ku tawasul mulaaziman xaalaa tahay mid laazimaya linahjihi sheekha wadadiisi nahjigii almutaballiji ee ifaayi bidulli maca dulli micigiisa adoo isbihinbihinaya laa bitafaakurin faanid iyo watakaaburin isla weyni maahan tafaakur iyo takaabur adoo kugu jiro muxuu ahaa wadadiisa ha qaadayna wadadiisa waxaad qaadaa adoo mutawaadic ah takaaburi wey bado hoos dhigan tahay masdaru takaabara wey takaaburan bado in la godo wey wa mudaawiman xaalaa tahay mid daa'imaya taxriikahu taxriikal baabi albaabka dhaqdhaqaajintiisa lul gilgiliw yar albaabka bitadallulin dulloobid macnaa isdullayn wa mushaahidan xaal aad tahay mid arkayo indhaha ku haya anwaarhu sheekha anwaartiisa bitajamulin maca tajamulin isqurxin micigeeda
cibaado iyo khayraa la isku qurxinaya rabbi la caabudo. bal mustamidan xaal aa tahay midka dalbaya minhu sheekha xaggiisa nayla takamulin dhammaystirmid gaadhisteeda, inaad kaamil noqoto kumalada ku jira. laa tataxawal haka wareegi inuu yidhi can baabihi albaabkiisii almaftuuxi ee la furay oo cadiyada loo furay, mutaraaqiban xaalaata mid sugaya licadaa'ihi siismadiisa, cadihii almutakaahira ee faraha badnaa. wax badana albaabkaas ka jiree wuxuu ku yidhi qif baabahu marka hore ku yidhi ma og tahay, haddana haka tegi inuu ku yidhi hor taagnaaw. mutadaliban xaalaa tahay mid dalbaya nayla alculaa darajo sare gaaristeeda, bitakhashucin maca takhashucin khushuucid micigeeda. mustashfiyan xaalaa tahay mid ku caafimaad dalbaya, ka caafimaad dalbaya sheekha ku caafimaad dalbaya min kulli daa-in cudur kasta xaggiisa inaad ka caafimaadid, da-aasuu muujicin wax xanuujiya. mustakfiyan xaalaa tahay mid ka kaafin dalbaya min xaasidin mid xasdaya in lagaa kaafiyo, wa murawicin iyo mid wax argagixiya. waqul waxaa tidhaahdaa buu yidhi, qul waxaa tidhaahdaa biqalbin maca qalbin qalbi micigiis, qalbigaasoo khaashicin khushuucsan, kaasoo mutadaricin tadarucsan, kaasoo mutawajihin u jeeda lijanaabi waxaad dhihi lahayd qusha maquul qowlkiisa waa soo socdaa beydka dambead ugu tegaysaa, lijanaabi baxrin bad dhinaceed adoo u jihaysan, baxarkaasoo daakhirin madkuurin mid la kaydaystay ah oo loogu talagalay qoladii sheekha ku dhawaaqda. saasuu ka wadaa. waxaad tidhaahdaa qul yaa shaykhu shaykhow, daakhir min tacbiiri ismi lfaacili wa iraadati ismi lmafcuul, daakhirin madkuurin oo macna ahaan leeyahay mid la kaydaystay. yaa shaykhu waxaad dhihi lawaatana yaa shaykhu shaykhow, muxyidiini diinka ka nooleeyow, adrigni soo haleel, wasunni wasun ilaalini aniga, inanii anugu maasikun waxaan haystaa buu yidhi bika adigan kugu dhegana, judli igu deeq cadiyo, wa munna ku galladaysto calaya aniga dushayda. yaa shaykha almashaa'ikhi sheekhyada sheekhoodiiyow, markaana adigu kuu soo jeesto wuxuu ku yidhi laa tahun haka daciifin warkaas inaad tiraahdid, tabaryariyeysa ku qaadin. yaa sayidii sheikhiiu haddana u jeesti, cibaarooyin kala duwan uu ku isticmaalahaa sheekhu, markaasaad waxaad is leedahay mawduucii uu ku socda wuu ka baxay, kama usa bixin, tafanunaa la yidhaahdaa. adaa hurdada lagaga kicinaasaad cashirka si fiican ugu dhegaysatid. yaa sayidii sayidkaygow, shifaa damaa qalbi, yaa shifaa damaa qalbi qalbigayga oonkiisa caafimaadkiisa kii ahaayow, xarfunidiyaa ka maqanasna. fakun waxaad ahaataa maadiran mid di-iya liax aniga ii di-iya, maa al cudaybi waxaa jirin labadaas meeloodoo cudayb iyo xaajira oo qofka aan jeclahay amaakintiisii ka mida biyihiisa. wuxuu ka wadaa maxabada maxbuubka saas wey. yaa mafzaci makaanu argagaxayga kan ahow, yaa malja-i makaanu magangalkaygow, khud qaba biyadii gacantayda, yaa dukhratii kaydkayga kan ahow, yaa marhamii daawadayda midka ahow, marhamkii alkaa-ina ahaaday fii jasadii, alkaa-ina ay ahaaday fii jasadii aniga jirkayga dhexdiisa. yaa nuura qalbii qalbigayga nuurkiisa kan ahow, daawinii iga daawey min awadii qalloocayga. yaa sayidii sayidkaygow, yaa sanadii tiirsamahayga midka ahow, yaa madadii kaalmahayga midka ahow, kaalmahaygow yaa dalmadadi ay u dhigantaa. kun lii waxaad ahaataa muciinii mid igu kaalmeeya, naasirii oo haddana igu gargaara cala alcidaa cadabiyaasha korkooda. wa min jamiici xusadii kuwa ixasda dhammaantood xaggoodana iiga gargaar buu yidhi. yaa manbacii makaanu burqashadaydow, yaa manbaca culuumi ay u dhigantaa, mudaaf ilayhi halkaas ka go-an. wa min cuyuunin qumayo xaggeedna iiga gargaar buu yidhi, ilo xaggood qumayo iyo wa futuunin fitnooyin kuwaas xaggoodana iiga gargaar. kun waxaad ahaataa macii micigayga. wa min shuruuri firqatin koox ama guruub shartoodana iiga gargaar buu yidhi, firqadaasoo laysad aan ahayn taciim mid weelaysay xaqa walaalnimada ah ama xaqa culammada ama xaqa maadixiinta, qolada madxiga sheekha ku haysata oo ilaahay ka magangelaya. laada wuxuu magan galay azaylaciyu imaamu zaylaci, sheekhii zaylaci loo nisbeeyey, zaylac loo nisbeeyey, bijanaabika dhinacaaga,
janaabkii almaniici mancinaya dulmiga oo qofkii muxuu ahaa ku dhagaahay oo nabadgelayo. cubayduka addoonkaaga ah zaylacigu addoonyarahaaga dheh, cubayduka addoonyarahaaga ah addoonkii almiskiinu ee miskiinka ahaa yabna daahiri midka daahirkaa wiilkiisow, midka laga dahiray rijsi iyo xumaan iyo gaalnimaba kan laga dahiray kan farciisaahow ay u dhigantaa. ahlalbeyti inamaa yuriidu llahu liyudhiba cankum rijsa ahlalbeyti wayudahirakum tadhiira, tadhiir rabbaaniyaha aalubeytka ilaahay siiya subxaana watacaala. sheekhuna waa aalubeyt oga yabna daahir, oday magaciisa daahir la yihaaho sheikha dhalay maaha. waxaa weeye sheikha asalkiisii inay dad daahiriin oo ilaahay dahiray yihiin uu ku tusaalaynaa. sheikhuna uu yahay awlaadii dadkaas mudahariinta. yaa jawhar alfardi waana inaas sheikhu leeyahy awliyada ilaahay u bixiyeen jawharulfardi, jawhartii keligeedeedoo wax weliyahay aysan jirin. waa ammaan meesha ugu cajaa'ibka badan. aqifnii ii gargaar buu yidhi cajalan caajilan xaal aa tahay mid degdegaya oo gargaarkaasi lasoo degdegaya, ama qawthan gargaar qawdkaasoo cajalan caajilan mid degdegaya ah oo asagoo hadiiba degdeg ku imaanaya. yaa haykalu samdaani, yaa haykal midka weynow assamdaaniyu ee allaha xaajooyinka loola qasdo loo nisbeeyey. rabbaani oo kale wey, mansuubun ilaa rabbi. samdaani mansuubun ila asamad, asamad min sifaati illahi tacaala. sayidka waa la yiraahdaa, waxaa la yiraahdaa alladii loola soo qasto qadaa lxaajaatka. xaaje markaad rabteed in laguu gudo, rabbiga loola qasto xaajadaas inuu gudo oo cid kaloo gudi kartaa aysan jirin. marka sifaadka ilahay sifa kamid aha loo nisbeeyey. yaa man axadkiiyo qad calaa sara maray khalqiga dhexdiisa. yaa mucaqila aljaaniyi midka dambaabay oo dembiga gurtay oo jaaniga ah. makaanu xiridiisii midka aho qofka dembiga ku jira ka reeba. macqil makaanu xirid, meesha neefka geelaa lagu xiraa macqilka la yiraahdaa. ciqaal meeshuu ka yimid weeye, xariga dabarka ah oo geela lagu xiro khaasatan oo socodka iyo loogu diidayo. anilni i gaarsii buu yidhi mudkhalan makaanu gelid, wanudkhilkum mudkhalan kariiman. makaanu gelid makaan kastoo la iska galo maahane mudkhalan kariiman wey, sifadiyaa go-an. yaa rawxa ruuxi rawxi naxariista nafteedii raaxadeedii midkii ahaayo. waa tacbiir cajiiba. rawx raaxada waa la yidhaahdaa, naxariistana waa la yidhaahdaa. labadooda marka midba midaad ku macnaynaysaa. naxariista nafteedii raaxadeedii midkii ahaayo. yaa zayna almalaa kuwa sharaf kale quruxdoodii kii ahaayo. qolo walbaba dadka ugu sharafta badana mala la yidhaahdaa. waxaa kaloo la yidhaahdaa jamaacadana waa la yidhaahdaa. khud biyadii khud qabow yiri biyadii gacanteeda yaa dukra kulli faakhirin mid faanaya dhammaantiis kaydkiisa oo uu ku faanayo kan ahow. qolo kastoo faanaysa sheikha kayd u ahow yiri waxa xoogaa ay ka heleen way ku faanayaan. waxa maani ogaan cajiiba way soo cajaa'ibka uu sharxa cajaa'iba waa la kala fasaaxo badan yahay. wasilka asxaabi rashaadi dullani ومدد الإحسان منك مدني وعن طريق الزائغين ردني ومن مريدك الكرام عدني لمرك وعيري ودلني إتص سلك أصحاب الرشاد هنونك أصحاب تيسا تحودنا إتص ماش أي قاعدين وطريق ودا سلك قاسن رواينا نقله ومدني يقول كلمة يجري مدد الإحسان وناجنته kaalmaheedii ama xoojinteedii. madadka ataqwiyana waa la yidhaahdaa, alicaana kaalmana waa la yidhaahdaa. marka muddanii igu kaalmeey madadal ixsaani ixsaanka camal wanaajinta xoojinteedii. oo labada macno ku kala macnaysid masderka iyo ficilkiisa, ama labadooda isku macno ku macnay oo waxaad ka dhigtaa masder mafcuul mudlaqa. waruddanii iga celi buu yidhi can dariiqi zaa'iqiina kuwa xaqa ka ishay wadadoodana iga celi. qoladii hore muxuu isticmaalay silkii oo isticmaal, qolada dambena wuxuu isticmaalay dariiq. labadoodana waa isku macno.
wacuddanii igu tiri min muriidiika kuwa adiga ku doonaya oo ku xiran oo silkagaaga ku jiro muriidiintaada oo xertaada igu daro igu tiri muriidiintii alkiraam ee wanaagsanaay jamcu kariimi yaa manbaca alkhayraati khayraadka makaanu burqashadoodow walma'aahiri yaa manbaca alma'aahiri wanaagayaasha makaanu burqashadoodow ma'aahirtu jamcu ma'haratin wey alma'haratu hiya almakrumatu almutawaaratha waa wanaaga jiilba jiilka kale ka dhaxlo oo layska dhaxlo sheekh haddii asalkiisa la fiiriyo dad sulaxahay ahaayeen wanaagga halkaasuu ka dhaxlay haddii mashaa'ikhdiisa la fiiriyana dad saalixiin hay ahaayeen wanaagga halkaasuu ka dhaxlay marka karaamatun mutawaaratha waaba uu lahaa sheekhu labada dhinacba ma'aahirta macnaheedu saas wey wadahiran qalbigayga waxaad ku dahirtaa uu yidhi biaxrufi rawi xarfu rawiga qasiidooyinka aan dejinayo bal barakadoodana bal qalbigayga waxbaa ku dahir uu yidhi xarfu rawiga waxaa la yidhaha qasiidada halka xaraf oo iska waafaqsan yihiin hadda qasiidadan raa'iyaa la yidhahdaa beyd kastaba ra'aa u dambeeya si fiican u fiirsha beydadka ya-du ka dambeydo ya-du waxay ka dhalanee hoos dhigga ra'du haysato maahane oo xarful idlaaqa la yidhaahdaa dhinaca qaafiyada waxay u kala baxdaa mudlaqa wa muqayada haddii xarafka ugu dambeeya qaafiyadu uu reeban yahay beydka xarafka ugu dambeeya uu reeban yahay waxaa la yidhaahdaa muqayadaa la yidhahdaa haddii uu xarakaysan yahana mudlaqa la yidhaahdaa xarakadaas xaraf munaasib u aha raacaya hadday kor dhigantahan alifha raacaya hadday hoos dhigantaha ya-a raacaya haddii ay godantahana waa raaca ama ha uliqat bilhaa-ina waa la yidhahdaa ha-da marmar waa loo isticmaalaa waad ku arki doontaan ashcaarta qaarkood marka xarfu rawiga oo qasiidadan ra'da ah qasiidooyin kalena wixii lagu hooriyaa ku dahir uu yidhi waayahay wanawiran nuuri qalbigayga binuurika nuurkaagii alqawiy ee xooga badnaa wabilmaqaami maqaamkiina ku nuuri maqaamkii aldaahiri ee muuqday iyo walmacnawiy kii macnawiga ahaa wabasiran tus qalbigayga siraadaka jidkaaga assawiya ee toosan yaa zamzam alwaraada kuwa soo arooraya zamzamkoodiyo cabdalqaadir iyo cabdalqaadiri wadullanii itus ila ilaahi alaxadi ee keligiisahay alwaaxidi ee keligiisahay allaahi ahay alladii ilaahi lam yuulad aan la dhalin walam yalid asna aan wax la dhalin walaa lahu ousanna u sugnaanin shibhun mid u eg shibhun shabiihun kaasoo qadii u dhow oo shabaha qadii bimacnaa qariib u dhow oo shabaha kunlii waxaad ii ahaataa buu yidhi shafiican mid shafeeco qaada cinda rabbii rabbigay agtiisa allihii asamadii xaajooyinka gudayay yaa mafkhara alaqlaami qalamyaasha iyo walmanaabiri mimbaradu faankooda kii ahaayo aqlaamta iyo mimbarada faankooda midka aho warfac koryeel wasaawisa waswaasyada shaydaankana xaggayga ka koryeel warijsan qurunna ka koryeel wadarana wasaq ka koryeel oo dembiga ah wa kulla daa-in cudur kastana ka koryeel cudurkaasoo daahirin muuqda iyo wamaa cudurkaasoo badana qarsoomay buu yidhi daahiran wa baadinan wa kulla durin dhib dhammaantiisna xaggayga ka koryeel iyo wabtilaa-in wa kulla ibtilaa-in ibtilo imtixaan dhammaantiis iyo walmixani shidooyin dhammaantood wa asil zuuli ashukuuka shakiyaasha iyo wal awhaama wahmiga can quluubinaa qalbiyaasheenna xaggoodana ka zuuli yaa fawqa kulli kaabirin mid weyn dhammaantiis korkiisa kan ahow wahab lanaa noo hibay cilman cilmi iyo kashfan kashfulxaal iyo walhudaa hanuun iyo walqurba dhowaansho iyo walwisaala xariirin juudan liajli juudin deeq darteed iyo wanadaa cadiyo wanadaa cadiyo horay ku cadfantaha wanadaadu wanadaa cadiyana noo hibay wa caafi munshi'an qasiidadan midkii bilaabay iyo waman qof qad anshada ku shicray oo asna aqriyey shicir dareeris sameeyey isagu ma tirin laakiin waa dareeriyey iyo waman qofkaasoo qad anshada shicir dareeriyey wamnun ku galladayso calaya dusheeda binadratin eegmo hal mara xaggayga aad soo fiirisid nadradaasoo tajliib faydaysa asadaa mirirka qalbiga ka faydaysa yaa malja-i makaanu magangalkaygow yaa xaafidee kan iga dhowrayo can kulli daa'irin mid wax dhiba dhammaantiis xaggiisa anta adigu dawaa-ii caafimaadkaygaa tahay daawadaydaa tahay wa shifaa-ii caafimaadkaygaa tahay wa amalii hididiilkaygaa tahay anta adigu najaatii koritaankaygaa tahay anta adigu cizii sharafkaygaa tahay nahali aroorkaygaa tahay ama cabitaankayga anta adigu
habaatii sugnaanshahaygii baa tahay anta adigu nuuru muqali indhahayga nuurkoodiyaa tahay anta adigu xayaatii noloshaydaa tahay anta adigu jaahii jaahaygaa tahay ma'malii ma'muulii kii aan hididiilanaya ayaa tahay yaa xujatii kan xujadaydaahw cinda ara'uufi ilaaha dhimriya agtiisa allihii ashaakiri abaal marinaya qof kastoo ku shukriya anta adigu assamaau samadaa tahay buu yidhi darajadaada weynankeeda maca culuwi maxallihaa samada maxalkeedii korrayntiisa maciisa waalardu dhulbaad anta adigu tahay binafcihaa maca nafcihaa nafcigeeda maceeda iyo wabibadlihaa wixii ay dhiibaysay ardadu oo ay soo saaraysa anta adigu almacaarifu dulmacaarifi macaarif macrifooyin oqon kala nooca mid u saaxiibaha tahay maca tafaruqi fadlihaa macaariftaas fadligeedii kala tegiddeeda maceeda macrifatu lculuum ومعرفة التقويم ومعرفة العمل والمعارف المتنوعة أنت أدو المعد كان لو ديارياتها للشدائد شدوين كلها دمانتين في هذه ميدان الدنيا ويوم الآخرة آخرة وسلام مولانا ربي كان تحيدي سنة عليه دوش هاتو سلام كاسو علية سلام تاسو علية تحيداسو علية سراي صده ما دامت الأيام مالمه انت أي دائمين ثم عشية عشنا وبدائم يهي وقت عشاء وهو تباعدد انت كفكتهي عنا أنا حق النبي جاهه شيخ جاهي سنة وفكتهي مرية شكي وتحية نبتقلي عليه شيخ دوشي ساها تحية سو من رب العباد الضومها ربي قول حقي سكاهاتي تحية سو تذكو يعني كعنايسة عبيرا أدقو في الدجاء مقدياش اللحدودة iyo wal baakiri aroortiiba qoraxdu markay soo baxdaa baakirka la yiraahdaa faghfir li ilaahu igu dhaaf bixubbihi bixaqihi sheekha xaqiisa ilaahu igu dhaaf wa ahli ehelkaygana ilaahu dhaaf yaa ilaahi allah yayow maca usuuli asalyaashayda micigooda iyo wal furuucdayda micigooda iyo waman qofkii tala raaca ama tala akhriya qasiidada wal xaadiriina iyo kuwa xaadiriinta oo meesha lagu akhrina joogana ilaahi u dambi dhaaf ومن قفنا إله الدم داف أعانا أكالميي كان أكو أخرينيا وهو بجل وينيي بوير قصيدة أما الشيخ فاغفر لي إله يقول داف بحبه الشيخ حبك سإلهي يا إلهي الله يو ذا العلا يا ذا العلا كرينت إله اسكاله ولمنشد قصيدة مد أخريينا إله داف ولسامع كان دقيست إله داف ومسامر مدك هاساوية وكسو جيدية دات كان إله داف ولمحسن مد كوناجية ولمضعم متك قودية دتك اسكو يمد لما أنت إله قدام بداف وتولنا إلهي أمرت أن تولنا أن نتولي يا ربي يا يو وارحمنا الله ونونا حريصه ولا تذلنا إله ندلين والمسلمين مسلمين تن إله حريصه ومن قف إله حريصه له قفكاس له وسقنا ذي قفكاس حق بنا أننا ونوسقنا ذي أصحاب صاحبه iyo axbaabun axbaab aan jecelna hayna axbaabtaasoo lana annaga noo sugnaatayna kadaaka sidaasoo kale ahaydeen ilaahu iyagana u dembi dhaaf waqfir ilaahu u dhaaf uu yidhi likulli muslimin qof kastoo muslima yaa naasiri gargaarahaygow ama yaa naasira kulli shayin yaa naasiri aniga kayga gargaarahayga ahu iska dhe marka wali qaasimulbaraawina ilaahu wuxuu yidhi u dembi dhaaf ولمن قفنا إله دم داف قف كاسو جاي يمت له شي قاسمنا ويمت رائما حاله يامد ضلبية منه شي قاسمنا أو كضلبية الدعاء إله سجن ودم داف واجعلن إله كيال بويري واجعلن كيال يا قائما الله أقومي بنفسه نفسدي سواء عدك لو بهنينو ذا مت كان أو نظمجا وحد كياشا خالصا مت هذيك كوسو كنا خالص كوه وكو برح لا وكو لا دائما مدعى بلاها كدقون من الذيم وكيمت لا تعدم الحسناء دائما ومثل ما هو ناكتو قرحوني عيب ويدا عيب ويدا ليري وروح ده واحد ضاف قال لي دي حتى وحكى له لقى يقول له واي مثاش مساس يكون صارت لا تعدم الحسناء دائما مركا الذيم العيب marka daa'iman maaha meeshaas waa daal ma idin dhigaa laa daa'iman mid ceeblaha ka dhigi nadmigan ceebla wuxuu noqonaa markan ilaahay loola jeedo khaalisan markuu noqon waayo oo ceebla noqonaa marka khaalis ilaahu ka dhigi ceeblaha ka dhigin mid ceeb leh ka dhigin
ثم مركز كقدر صلاة عليه وسلام نبتقليو دائما دائمين حاليهن لبدو بكبة دائمة على النبي قدوش هذين جوهر الجواهري جوهر رده جوهرت هذا أها نبي أفضل رسل الله إلهي رسول شيسا كانوا فضل قبضنا خير من أحد كيوغو خير قبضنايا كاسو عفا وحافية محمد النبي محمد ناه أخيار الأنام خلقك كيوغو خير قبضناه المصطفى إلا دورتي مظهر دين الله إلهي دين تسكي موجيه ضاها مقعسنا ضاها اللي يراهدو من أحد كاسو صفا قلبه سو صافي نغضي وآلي آل كيسينا الله يالو هي وصحبي صحابة ديسي أهل الصفاء صافي النقشة أهل كذا أها من ضدنا أها ضد كاسو ذكرهم أيها حسكودو أمن أمانة ويهي أمن كاسو اللي هولي محاشرة ميلا لسكو سو كل من يشدد يدا وسقنا والله سبحانه وتعالى أعلم.